السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو دوادا قاليال وعشرانتين امتحانها إن ربنا ku faansiyo suuqan forex trading-ka cashirkeeni shanaad baan marayna haddii la yidhaahdo waxaan maanta ka hadli doonaa types of traders wax la yidhaahdo ama qaybaha traders oo kala baxaan adaa markaas odhan doona anu trader noocayaan ahay marka waxa adu afar baa loo qaybiyaa inta ugu weyn afar weeyaan ayaa loo qaybiyaa tradersku what type of forex trader you are trader noocee ayaa tahay marka afarta nooc weeyaan waa scalper waa day trader waa swing trader iyo position trader ama position traders waayahay haddana ka sii socono marka waxa weeyaan scalpersku maxaa scalpers loo yaqaan scalperku waxay raadiyaan few pips bay raadiyaan ayagoo loss size waalana ku galaya ama loss size ku galaya waxa la yiraahdaa iyaga get in and get out baraya waa quick in and quick out dhaqsay u galaan trade-ka 5 daqiiqo 4 daqiiqo 10 daqiiqo ugu baashay 10 daqiiqo ay ku jiraan way ka baxaan suuqa iyaga waxa la yiraahdaa marka scalpers baa la yiraahdaa pips baan bay raadiyaan 10 pip iyo 5 pip meelahaas ay raadiyaan loss size bay ku dhufsadaan loss size kana fahantii ma filaya haddaan fahmin oo ku celin doona waxyaalo badan oo nasu casharaanta iyo ku dhusanaya oo ka baxaya suuqa scalpers baa la yiraahdaa kuwaas waxaa jira kuwa la day traders oo anigu aan ka mid ahay day traders marka iskaalaan Cabdirasaaqan day traders waxa ay ka trade garayaan ayaguna ama haysan karaan maalinta oo dhan bay haysan karaan maalinta dhan trade bay haysan karaan trade-kaas maalin buu ku qaadan karaa oo trade-ka saaka galeen ilaa inuu caaw xidho yaa laga yaabaa day traders badanaa waa sida loo badan yahay day trader badanka dadku u badan yihiin waa tahay waxa jira isna waa swing traders wax kala maaha ninkana waqti bay ku qaataa swing traders maadaama uu day wax ka badan suuq haynayo waqti badan bay ku qaataa inuu askarayo trade-ka wuxuu doonaya inuu hayo maalmo haynaya trade-ka 3 maalmood 4 maalmood 5 maalmood buu haynaya hadduu doono ilaa week hayn kara markaasna waxa jira swing traders-kuna waa kuwaas weeyaan waxa jira ugu dambeeya position traders waa iyaguna kuwaas ka sii xag jiraan trade-ku waa traders weyn kuwani trade-ku waxay hayn karaan ilaa maalmo ilaa waxay hayn karaan ma jira weeks months even xataa year bay trade hayn karaan hal trade oo kale bay inta hayn karaan marka kuwan waxa la yiraahdaa position trader waa sida u kala sareeyaan noocyada traderska waaya shalay cashir xogaa inaga gaabtay baa jiray aan u baahanahay in maanta hadii la yiraahdo aan aad u fahno hadii la yiraahdo waaya waxa sidii trade view-ga loo habeeysanay trade view-ga si loo habeeysato marka u horeysa halkan waxaad ku qoraysaa trade view baad ku qoraysaa trade view waa tusiye ama website noo sahlaya in aan suuq analysis karno si bilaashana waa analysis kartaa waxa jira isagoo mataqaanay lacag yar la bixiyana uu jira oo more additional features buu siinaya laakiin hadda uma baahnid adigu waxa sameynaysaa waxaad sameynaysaa magacaaga gelinaysaa magac la baxaysaa adigu soo qal Cabdirasaaq onto email-kaaga gelinaysaa waxa email baan gelinaya email-kayga ma halags email oo tijaaba weeyaan marka waan hubinaynaa email kan hubinaynaa xogaa arsug kan 967 gmail.com email-ka waxaad gelinaysaa password-ka waxaad ka dhigay password aad keen doontaa xarfa yar waxaad ku dari ku xasuusin kartidna ka bacdi waxaad oranaysaa agree
xaggana waxaa saartaa maad robot baa tahay buu leeyahay halkana mayanaad odhan wax yar buu kusoo tusayaa marka waa isku match garayn verify baad oranaysaa light traffic marka uu qaadanaya markaa sign up baad oranaysaa sign up markaad tiraahdo maad kuu save garay haddaad doonto save garisada haddaad doontana mayaad iska odhan sendi baad oranaysaa link to activation link iisoo dira oo emailka igu soo diro okay emailkaga tagaysaa waa kan saas ugu soo dhacaya kabacdi maxaad kusoo dhufanaysaa active baad oranaysaa active baa soo odhanaysaa haya soo dhafacno let's work haduu shaqeyn waayo marka iftaan isku dhufanaysaa guri labada page ma shaqeynaya marka ku soo celin balaadana haduu anyway saas ugu dhufanaysaa ku soo galaya markaas taas kugu soo galaya sorry that page does not exist marka something baa wax ka qaldan xagooga laakiin marka active ku dhufato waa inuu markaaba kugu soo dhacaa ku soo galaa ku soo dhaco waad ku soo dhufanaysaa waayahay no waayahay sign up be xiri email or reduce emailka waa la isticmaalay weli markaad u soo ugu dhufatid toos marka saa linka ugu soo dhufato caadi buu kugu soo galaya halkan waxbaa qaldan yahay uu leeyahay laakiinse marka saa ugu soo dhufato toos buu ugu soo galaya kabacdi markuu kugu soo galo linkaad kusoo dhufatay activation linkigaas wuxuu ku keenayaa meel bannaan oo ah mataqaanaaye suuqiya mataqaanaa wuxuu ku odhanayaa magac samayso magac baad yara samaysan doontaa haddii la yidhaahdo magaca markaad samaysatana saas kugu shaqayn doona haddii la yidhaahdo markaan waan galayaa iminka for example waa kan aan ka baxno sign out nooga soo dhafa kenya waa kan okay chartiga noo tag sana kugu soo baxaya saas ayuu kugu soo baxaya markaad soo timaadid halkan kabacdi waxaan yar saas kaga qaado waxaa yar saas kaga qaado u nadiisato waxaa samayn doontaa tan oo kale waad ku dulfan sell and buy hire panelka maad ku dhufanaysa kuwanay noqotay remove indicators uma halkaa ka qorantay maad ku dhufanaysa remove indicator ma ku qortay xaggan waxaa la yidhaha time frames baa la yidhaha waa day maalinta dhan halkan dal baa soconaya waxaa jira 1 minute 5 minute laakiinse adigu ma soo qaadso aan dhigan doonaa kuwana 1 hour kaalay
euro USD حاجة نقول أما USD CAD USD CAD نقول كبعد سنة هو سنة حيمنا حاجة ساعدة سنين ساعدة لو قرقتها waxay raadinaysaa markaa magaalo Moscow kale la raadiyo markaa nago Soomaaliya qof markuu joogo halka meel kale joogtana meesha ku dhow markaa ee ama Riyadh oo kale waatan Moscow isku dhufanaysaa saacadii baa soo baxaysa markaa maxay USD card sanad noqotay haddaad inaad taqaanaa sii nadiisato chartiga doonayso xaggan iman click baad halkaa siin settingka tagi settingka markaa tagto last value gaas ka qaado hadaad rabtid kabacdi appearance-ga dhiman xagga grids ku qoran tahay ayuun baad xagga u riix eber marka dhigi halka ay ku qoran tahay horizontal grids-kana isna waad nasiix kabacdi suuqii saas kugu soo baxaya si clear ayuu kugu soo baxaya si clear ayuu kugu soo baxaya suuqii waa tahay haddaan intaa markaa ku dhaafno waxay noo soo haray sidii loo bixinay isagana investing.com si looga soconayay wararka iyo lacagaha awoodooda iyo xaas investing.com halka ay market ku qoran tahay tagaysaa website-ka kale ni sheegay currencies meesha ku qoran tahay ku dhufanaysaa currencies meesha ku qoran tahay ku dhufanaysaa waa kuwan lacag iyo dhan euro USD ka hatta lacag rabtid markaa maanta lacagta aad iskarisid warbixin inaad ku ogaato hadaad rabto waad ku dul dhufanaysaa halkan aad imanaysaa waxaad leedahay markaa technical analysis meesha ku qoran technical analysis aad ku dhufanaysaa technical analysis waxaad oranaysaa markaa lacagtan ma buy ama sell baa wana warbaad imanaysaa wuxuu ku leeyahay waa strong sell waxay imanaysaa 5 hour-ka wuxuu ku leeyahay waa sell laakiinse qaarna waxay leeyihiin bull indicator qaarna waa sell indicators waan baran doonaa daily-ga waa strong sell marka saasaad wararka wala soconaysaa sidoo kale waxaad ogaan kartaa maxaa niyuusyada waxay dhahdeen maxaa war ka soo baxay lacagta maxaa war ka jira halkan baa indhaa yar marnaysaa waa iska akhriyaysaa wixii war ka soo baxad la soconaysaa waa tahay kaana waxaa filaya inaad fahantay sidoo kale waxaad arki doontaa lacagaha strengthskooga iyo sida lagu ogaado ayaan xoogaa inaan leela waraaga doonaya waxaa jira qaab yar lacagtan ka noqono market currencies what madowga tikhda maaragta madowga tikhda bluega tikhda green ka wuxuu ka turjumayaa strong buy inay tahay buydu waa green redkuna waa sell kan tikhda ana wuxuu sheegayaa sell oo mataqaanay oo saayida marka kuwa yar khafiifka waxa sheegayaan inuu khafiif yahay inuu tusahan hadii aad rabtid maanta inaad ka ganacsatid euro ama GBP sahan CAD iyo USD maxay noqonaysaa sell fiican weeyaan marka lacagtaas fariin sahan USD CAD maxay USD waa tan dusha taala lacagta dusha taala CAD maxay noqotay waa tan waxay noqonaysaa markaa sell taxay noqonaysaa CAD iyo maxay kala ayadna AUD lacagta Australia waa sell fiican play soo kala socon kartaa indicatorada maxay kale indicatorada casharka noo soo socdo dileera waxay noo soo haray forex factory marka taadisaan ku soo baxay waa si aad u habaysato halka yar baad tagaysaa meeshaas baashar bas ka qaad remove black from the page waa taas ka qaadaysaa halkan filter meesha ku qoran ku dhufanaysaa waxaad reebanaysaa kaas yaree nooca kan iyo kan labada dhex ka qaadaysaa apply filter baa oranaysaa niyuusyada soo la socodsi iyo wixii warbixin ka jira niyuusyadana waan dhigan doonaa insha Allah wax shirana soo socdo hoostana imanaysaa bahashan yaro watch list laga socdo
waqtiyada iyo xilliga ay London session iyo New York session iyo xilliyadaas suuqadu kala furmayaan ayaad kala soconaysaa waad la dhacaysaa kor waad ku dhufanaysaa damar labaad ilaa inta korka sare ku imanayso la dhacaysaa waad la dhacaysaa marka la dhaco dusha sare ku imanaysaa dusha sare iyo ku imanaysaa dusha sare ka u sareysa ku imanaysaa marka waxaad kala soconaysaa suuq walba xilligaaga dhanka uu furmayo waad haddaad doonaysa saacadana saa loo beegsado waan soo dhiganay mafriya maanta cashirkeenu insha allahu tacaala intaas ku kooban yahay waxaan filayaa inaad waxuun ka fahantay cashiraanta dambe insha allahu tacaala way inoo soo socdaan sida suuqan loo analyse gareeyo sida chartigan analysis loogu sameeyo sida suuqa loo galo waxaasoo dhan way inoo soo socdaan wixii kale aad la dareentaan insha allahu tacaala comment section noogu soo qoro haddii la yidhaahdo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu